U heesida dhallaanka waa muhiim si looga caawiyo inay luqadda bartaan, ayay saynisyahanadu sheegeen. Daraasadu waxay ogaatay in dhallaanka marka hore ay luqadda ku fahmaan laxanka iyo codka halkii ay ka fahmi lahaayeen dhawaaqyada shakhsi ahaaneed. Sida laga soo xigtay saynisyahano ka socda jaamacadda Cambridge, waxaa jira wax badan oo ku saabsan gooryaanka dhegta marka loo eego xanaaqa. Waalidiinta ee ku nool adduunka lagaga hadlo Ingiriisiga waxay ogaadeen in hadalka heesuhu uu muhiim u yahay caawinta dhallaanka inay bartaan luqadda. Daraasadu waxay ku soo gabagabaysay in dhallaanku ay luqadaha ka bartaan macluumaadka laxanka, kor u kaca iyo hoos u dhaca dhawaaqa, sida lagu arkay heesaha xanaanada ama heesaha, sida heesta alifbeetada meel kasta. Kooxda Cambridge waxay kaloo ogaadeen in dhallaanku aysan bilaabin farsamaynta macluumaadka dhawaaqyada ugu yar ee hadalka ilaa ay ka gaarayaan qiyaastii 7 bilood. Cilmi-baadhayaashu waxay sheegeen in natiijooyinka oo lagu daabacay joornaalka Nature Communications ay caqabad ku yihiin aragtida ah in macluumaadka codka oo sida caadiga ah lagu matalo alifbeetada ay tahay furaha barashada luqadda. Waxay yiraahdeen waxay sidoo kale soo jeedinaysaa in dyslexia iyo cilad xumada luqadda koriinka ay la xiriirin karaan garashada laxanka halkii ay ku adkaan lahayd habaynta macluumaadka dhawaaqa. Prof. Usha Goswami oo ah khabiir ku takhasusay cilmiga neerfaha oo ka tirsan jaamacadda Cambridge, isla markaana ah qoraaga daraasaddan, ayaa tidhi, cilmi-baadhisteena waxay muujinaysaa in dhawaaqa hadalka ee shakhsiga ah aan loo farsamayn si la isku halayn karo ilaa 7 bilood, inkastoo inta badan dhallaanka ay aqoonsan karaan ereyada caanka ah sida dhalada. Halkaa marka ay marayso, wixii markaas ka dambeeyey dhawaaqyada hadalka gaarka ah ayaa weli si tartiib ah loogu daraa si tartiib ah si loo sameeyo saldhigga luqadda. Waxaan aaminsanahay in xogta laxanka hadalku ay tahay xabagta qarsoon ee ka shaqaysa horumarinta nidaamka luqadda ee si wanaagsan u shaqeeya. Waalidiintu waa inay la hadlaan oo ay u heesaan ilmahooda intii suurtagal ah, ama ay isticmaalaan hadal ku hagayo dhallaanka sida heesaha xanaanada, sababtoo ah waxay isbeddel ku samayn doontaa natiijada luqadda. Horay waxaa loo maleeyey in dhallaanku ay bartaan canaasiirta dhawaaqa yaryar oo ay isku daraan si ay erayo u sameeyaan. Si loo fahmo in arrintu sidaas tahay, cilmi-baarayaashu waxay duubeen dhaqdhaqaaqa maskaxda ee 5 eber dhallaanka ah oo jira 4, 7 iyo 1 bilood iyagoo daawanaya muuqaal macallin dugsi hoose oo heesaya 8 heeso xanaano ah. Kooxdu waxay adeegsatay algorithms gaar ah si ay u tarjumaan sida dhallaanku u codaynayeen macluumaadkan maskaxda. Saynisyahanadu waxay ogaadeen in codaynta dhawaaqa ee dhallaanka ay si tartiib ah u soo shaacbaxday sanadka ugu horeeya ee nolosha, oo ka bilaabma dhawaaqa ilkaha. Waxaa soo saaray ilkaha hore sida D oo loogu talagalay aabbaha iyo sanqadhaha sanka oo la soo saaro marka socodka hawada lagu hago. Sanka sida M oo loogu talagalay hooyo. Goswami wuxuu yidhi, carruurtu waxay isticmaali karaan macluumaadka laxanka sida qalfoofka ama qalfoofka si ay ugu daraan macluumaadka codka. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inay bartaan in qaabka laxanka ee ereyada Ingiriisku caadi ahaan daciif yihiin, sida aabbaha ama hooyada oo leh culayska shibanaha koowaad. Waxay isticmaali karaan qaabkan qaafiyadda ah si ay u qiyaasaan halka uu kelmad ku dhammaado mid kalena uu bilaabo marka la dhegaysto hadalka dabiiciga ah. Waxay sheegtay in laxanku uu yahay dhinac caalami ah oo luuqad kasta ah, halkaas oo dhammaan dhallaanku ay la kulmaan qaab garaac xoog leh oo leh xaraf adag 2 jeer ilbiriqsi kasta, iyadoo raacisay, anaga waxaana loo habeeyey biology si aan u xoojino tan marka aan la hadlayno dhallaanka. Daraasadu waxay ka kooban tahay qayb ka mid ah mashruuca Babberitam ee uu hogaamiyo Goswami, kaas oo baaraya sida luqaddu ula xiriirto dyslexia iyo cilada luqadda koriinka. Waxay sheegtay in ay jirtay taariikh dheer oo la isku dayay in lagu sharaxo kuwan marka la eego dhibaatooyinka dhawaaqa, laakiin caddayntu ma soo kordhinayso kala duwanaanshaha shakhsi ahaaneed ee xirfadaha barashada luqadda. Carruurta ayaa laga yaabaa inay ka soo jeedaan laxanka.